waxaan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska runtii ku bogaadinayaa in waxyihii wasaaradda waxbarashada oo markii hore 29 waaxood ahaa lagu soo ururiyey 13 waaxood runtii aad iyo aad waxa bogaadin leh taariikhda markii ugu horeysay agaasimayaasha waxyaha ay ku jiraan tiradii ugu badnayd ee hablaa oo bogaadintooda leh oo runtii waliba aan farta ku fiiqayo inaanay kaliya xuseyn ahayn agaasimo waaxidin la xuseyn ahayn ay yihiin goobo muhiim ah taasna waxay muujinaysaa in habluhu xaq u leeyihiin in ay xilkan imika ay hayaan iyo mid kale oo ka sarreeyaba runtii ay qabtaan arrimaha dareenka gaar ah waxaan ku marka aan si dhaabacay waxaan ku agaasimayaasha waxyaha cusub waxa kamid ah mudnaanta ka wada muuqashada gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay si mug looga muuqdaan waxyaha wasaaradda waxbarashada taas oo runtii aan u arko horumar weyn iyo bogaadin weyn iyo in wasaaradda dhinacyadeeda oo dhan runtii ay iska wada arkaan aad baan u bogaadinayaa waxaan u mahadnaqayaa runtii oo arrin aad iyo aad runtii mucjiso u ah afarta cishaalka la joogay waxqabadkii runtii ay wasaaradda waxbarashadu waliba agaasimayaasha cusbaa runtii soo bandhigeen waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa madaxda sare ee wasaaradda oo wasiirku ugu horeeyo wasiirku xigeenka agaasimaha guud oo runtii soo abaabulay oo waxa weeyii awrka dambe saanqaadkiisu leeyahay day nagu hogaamiyeen inuu runtii ma taqaanaa arrintaasi aynu ka jiba keeno waxa hadda inoo hadhayna waan filayaa waxa weeyii si loo dabaqi lahaa inaynu ku dabaqno mustaqbalka in lagu dabaqin qofku halkaa intaa uu joogo isagu departmentka madax ka yahay taasina waa talo wanaagsan oo runtii ka qaadanayno marka waxaynu u baahannahay waxan aynu la taliyayaashu runtii inaga caawiyeen inagu soo kordhiyeen aynu meesha fieldka kula kulanay in la dabaqo waxa weeyii aan aad iyo aad runtii ugu hambalyeynaya sida isku xidhnaanta leh ee madaxda wasaaraddu runtii ku wada shaqeynayaan waxana loo baahan yahay in wax walba waxa madax u ah oo wax walba lagu guuleystaa ikhlaas kelmadaniyo daacadda ittaqillaha haysa ma kunta wattabi'u sayyi'atul hasana tamhuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasan hadiiskaas oo kaliya hadaynu dabaqno wax inaga xumaanaya ma jiro hadiiskaas waxa weeye nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu ina yiri meel kasto oo joogtaan ilaahay ka cabso khaladkii ka dhacayna wanaag ka dambaysiisa ha u masaxo dadkana kula dhaqan dabeecad wanaagsan iyo akhlaaqad wanaagsan marka runtii waxa weeye intaasaan oran lahaa waxaana leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro cid kasto ka soo shaqaysay oo madaxda wasaaradda iyo qolada maamulka iyo cid kasto oo iyo runtii la taliyayaasha iyo cid walba ku lahayd roolba waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro dalkana way nuu ducaynaa nin walba markaa tukanaysana cid lagu jiro ilaahay baa garanaya inuu ilaahay aafaadka ina garab mariyo ducada ku dara imikana ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu bixusnu khaatuma inoogu dhameeyo seminaarkeena wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala iskuulladeena in la furo 18 bisha biidni illaah ilaahay xanuunkaana hareer mariyo intii ku dhacay ilaahay caafimaad siiyo gudoomiye daawud waxa uu tiirarka oo qarankan u leeyahay wasaaraddu leedahay isagana ilaahay cimriga u barakeeyo tacabkii faraha badnaa wasaaradda soo gelina inuu daa aakhiro ku bedelo daa jari xasanaad nawaanu gudoomiye aad baad maasan tahay runtii afartii cishaalkan soo joognay wax weyn baa runtii qabsoomay waxa la kala cadeeyay markaa waaxihii shaqadoodii wixii ay ka wada shaqeyn karayeen iyo markaa section kasto kamid ah waaxda shaqadu qabanayay taas hadhow waxay fududaan doontaa markaynu shaqada qabanayno in si fudud markaa shaqadii loo qabto iskaashigana markaa meesha jiro marka aad iyo aad baan u hambaleynayaa dhammaan agaasimo waaxidyada shaqada fiican ee muddadii koobneed halkan la joogay afarta cisho qabteen la taliyayaasha wasaaradda oo iyaguna draafka horna inoo keenay intii dambena runtii farsamada
aad iyo aad nooga qayb qaadanaya aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo rajaynayaa wada shaqayntu had jeer niyad wanaagga kama soo hadho iyadoo shaqada la kala cadeeyo la kala ergereeyo haddii haddana niyad wanaagsaneyn lama wada shaqayn kara iyadana niyad wanaag ku darno oo teamwork waxa weeyaan wuxuu ku xidhan yahay iyo dee shaqo kastaaba niyadda ku xidhatay niyadda ka tahay xataa salaadda markaad tukanayso haddaanad niyeysanin maanta duhur tukanayso ood si fiican usoo weysaysato oo dharkaagu dahaaran yihiin laga aqbali maayo marka shaqadiina si shaqo barakaysan noqoto niyad wanaagna aynu ku darno is-ixtiraamna aynu ku darno daacadnimana aynu ku darno aad iyo aad baad mahadsantihiin hawl fiican baynu qabanay nimankii ka soo shaqeeyey iyo kuwiinii la qabanqaabiyey intuuna waad mahadsantihiin marba waxaan nahaa dowladaha jaarka aynu ku dayano iyo halkan dhowr baa iska daba yidhi kolkaa waxa weeye innagaa laynagu sugayaa inaynu wax bedilno oo kurukankaynu waynu bedilan oo ardayda aynu bedilno oo aqal saliim aynu la nimaadno oo aynan odhan magaranaysaa etoobiyaynu teganaayo kenyaynu teganaayo iyagu inoo yimaadaan haynu ka fikirno si jiilkeenna waxaynu beri lahaa haklasha la-aan kolkaa walaalayaal ama saaxiibayaal ama adeerayaal hawshaa nin walba halkiisa ka dado ha dadaalo oo ayaan la odhanin 3 dharaaruun baa hayde ma iska daa waa nin sectionku waa inuu agaasima la shaqeeyaa agaasimuhu waa inuu wax weydiiyaa ninka sectionka ah oo la shaqeeya ee dictator uu noqon السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مركه هراء إلهي بام مهدله. برلمانات كم عم مهدله أو أمانة مدن. تذكي سوق بقابيي. هاوشان. يتذكي كسوق قريب قلي. يتذكي قريب توي كي يستي input كدمانتين. ولما وحنا كفر حسنا هاي إن أينو بالسميني. فاكشنسكي شقادي يمسؤولية دي واحد ولبا يقرب ولبا أي قبل لهاي. oo waliba maskaxdeennii input-keennii oo dhan ama wixii aynu gelin karayna aynu gelinay iyo balaankeenii hore horta arrinka barnaamijkii aynu gaadhsiinaynay caruurta ee aynu ku gaadhsiinaynay telefishinka iyo idaacadda si fiican buu guulaystay meel walba waa laga soo sheegay Somaliland dacaaladeeda iyo daafaheeda iyo dibaddaba waxaanu noqday barnaamij guul ku dhamaaday alxamdulillah waxaan ugu mahadnaqaynaa macallimiintii iyo waxyihii soo qabaqaabiyey iyo wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta iyo dhaqanka oo wariyaasheeda iyo farsamo yaqaanadeeda iyo kamaramaankeeda iyo hablaha ka shaqeynaya ay noo suuro geliyeen ilaahay inta ka sokaysa ay noo suuro geliyeen hawsha ayada waxa kale oo aynu ognahay laakiin in kastoo guusha aynu gaadhnay weli haddana waxa inaga dhiman caruur badan oo inaan weli gaadhin marka caruurtaana si aynu gaadhi lahayn falowgeed waa inuu qabanno waxaa ka mid ah caruurta miyiga ku nool ee meeshay joogaan aanay gaadhin telefishinka iyo idaacadda Somaliland waxaa kaloo ka mid ah caruurta ku nool meel uu telefishinka iyo idaacadduba ay gaadhaan laakiin dhaqaalahoodu aanu saamaxayn inay qoyskoodu ay telefishin u soo iibiyaan guriga soo dhigaan ama radio waxa kaloo ka mid ah caruurta ay lixaadkooda wax ka dhimayeen baahiyaha gaarka sida caruurta maqalku kala dhiman yahay iyo caruurta uu aragu kala dhiman yahay caruurtaana waxay nagu waajiba sidaynu gaadhi lahayn oo marka hore waxaynu samayn doonaa waxaynu wadnaa qaab aynu u gaadhsiin karno radio maarta qoraxda ku shaqeynaya iyo tablets qoraxda ku shaqeynaya oo aynu casharada aynu ugu duubno oo casharadii oo ku jira aynu qaybina caruurtii dabeetana intuu gurigoodii la tago isagoo geeloodii la joogo ama beertoodii qodaya ama loodii la joogo uu halkaa ku dhex baran karo oo aan leedna uga baahnayn internetka uga baahnayn maqalka oo kale qoradu ka dhiman yahay dee waxaynu u samaynaynaa afka suuldhabaalaha imika cabdishakuur oo halkan dhinacayga ku hadlayo inaynu ku gaadhsiino oo aynu ku duubno markaynu casharada duubayno uu la socdo caruurta kale ee indhaha wax ka dhiman yihiin laakiin maqalka arkaya kuwa iyaga waxaynu gaadhsiinaynaa raadiyowga qoraxda ku shaqeynaya ee ay dhageysan karaan hadhowto wasaaradda waxbarashadu markaa isla imikaynu ku bilaabaynaa in cashar kastoo la duubayo uu daba taagnaado qof afkii suuldhabaalaha ku hadlaya
ayaynu garanaynaa shaqadii horeynu ka bilaabaynaa wixii dee aanay xaaladahan emergency wixii aanay inoo diin waxaynu kusoo gabagabaynaa markaa dee hawl weyn baynu qabanay waxa inoo hadhay furinteedii iminka qorshii baynu samaynay wadadii aynu marnaynu samaysana qof walba shaqadiisii baynu isla garanay inagoo si wada jira aynu isula garanay markaa markaynu haddii ilahay idhaa sabtida bilowno qof waliba dee halkii uu ka bilaabay ayaynu garana waxaynu markaa samaynaynaa oo kale oo aynu bilaha soo socda samayno jaamacadda ummadda Somaliland State University ama Somaliland National University jaamacadda ummaddu markaa waa maxay jaamacad ay dawladdu leedahay oo dalka oo dhan gaadha oo degmooyinka dalka oo dhan ku yeelata xarun faracyo ama campus waxa doonto ugu yeedh markaa imika waxa hamigeenu ku jira markaa jaamacadaha ay dawladdu leedahay ama bulshadu leedahay danta guuda ee imika jira inay noqdaan xarumo jaamacadda ka tirsan insha Allah kuwaana waynu ku guuleysan doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.